waddanka Ciraaq mid ka mid ah meelaha ay ka soo unkumeen ilbaxnimooyinka maanta ka jira caalamka. ilbaxnimada Sumeeriya waa mid ka mid ah xadaaradihii ugu horreeyay ee ka hana qaaday dunida. Baabil, Ashuuriya, Mesopotamia iyo ilbaxnimooyin kale oo badan meesha ay ka soo ifbaxeen oo ay ka jiri jireen waa halkan. بلاد الرافدين. بغداد waa magaalo qadiim ah oo sooyaalka caalamka kaga taal bogag muhiim ah. muuqaalada iyo sawirada laga reebay waqtiyadii hore waa kuwana tusinaya magaaladan iyo waayaheedii wacnaa ee ay soo martay. waayahaasi intiisii ugu quruxda badnaa waa intii ay muslimiinta majraha u hayeen maamulkeeda. islaamka ayaa wax badan lagu ammaanaa dib u dhiskeeda, isku dubridkeeda iyo ilaalinta goobaheeda taariikhiga ah. muuqaallo iyo sawiro kale oo waxaa jira magaaladu ay leedahay oo marka la daawado cabsi iyo argagax leh. waa sooyaal kale oo na tusinaya hagardaamooyinkii gumaystayaashu ay u geysteen magaalada iyo dadkeedaba. ka soo bilow xilligii halaagu hogaamiyihii manguuliyiinta ilaa laga soo gaaro wakhtigii George Bush oo ahaa madaxweynihii dowladda Mareykanka. Dajla iyo Furaad waa biyaha ugu weyn dhulkan dushiisa marka laga yimaado badaha, waxayna ka mid yihiin meelihii ugu horreeyey ee ay dadku wax ku caabudeen ama macbadyadii ugu horreeyey ee caalamkan. dadku iyaga oo dhinacyo badan ku kala duwan ayay haddana si wada jir ah ugu nool yihiin. diimo, isir iyo mabaadi' kala gedisan ayaga oo wata ayay haddana si isku mid ah ugu wada dhaqan yihiin magaalada. way yar tahay in la arko magaalo sida Baqdaad oo kale ay dadku dhinacyo badan ku kala duwan yihiin, haddana ay si isku mid ah ugu wada nool yihiin iyaga oo is ogol. dowladda heesta calankeedu uu yahay ama uu ku jiro ereyga ah waddankayga. mid ka mid ah ujeedooyinka dadka dalkaasi midaynaya oo ka dhaxeeyana waa waddankooda. بغداد waa caasimadda Ciraaqda cusub, taas oo madax bannaanideeda ka hanatay Britain kadib kacaankii 1920kii, xilligaas oo Ciraaq loo kala qoqobay dhowr maamul goboleed. kadib markii uu dhammaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, isla markaana ay duntay dowladdii Cusmaaniyada 1918kii, waxaa dalka Ciraaq qabsaday intii muddo ahaydna maamulayay boqorkii Haashimiga ee boqor Faysalkii koowaad, kaas oo ka soo galay xagga waddanka Syria. laakiin si rasmi ah xilligii loo shaaciyey in Ciraaq ay Britain xornimadeeda ka heshay waxa uu ahaa sanadkii 1932kii. Haashimiyiintu waxa ay dalka xukumayeen ilaa 1958kii, ayaga oo ugu dambayn uu maamulkoodu ku soo afjarmay hannaan uu dhiig ku daatay. nidaamkii loogu yeerayey boqortooyada Haashimiyiinta ee Ciraaq waxa uu isu beddelay Jamhuuriyadda Ciraaq. shacab nabadda jecel laakiin colaadda nasiib u helay intii muddo ahaydba. dad wax akhriska aad u jecel qoraalada iyo buugaagtana wehel ah. لأننا نعتقد أن بالقراءة والمعرفة ممكن القضاء على آفات الجهل وآفات التطرف وآفات العنصرية. in ay yihiin dad wax akhriska jecel darteed waxaa jirta oraax aan baxday oo dhahaysa qaahira way qortaa, bayruud way daabacdaa, baqdaadna way akhrisaa. يقول لك القاهرة تكتب، بيروت تطبع، وبغداد تقرأ. waa taas sababta magaalada looga heli karo suuqyo waaweyn oo buugaagta oo keliya lagu iibiyo. in kasta oo baraha bulshadu ay saameyn ku yeesheen jiilka soo koraya, haddana bulshada ku nool Baqdaad waa kuwo ugu wax akhriska badan, gaar ahaanna qoraalada daabacan. bulsho kasta inta ay ka akhris iyo qorid badan tahay kuwo kale waa inta ay ka ilbaxsan tahay. waa taas fikradda ay rumaysan yihiin si aad ahna ugu dheggan yihiin. Baqdaad waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu aqoon-yahanada badan. keliya ma ahan aqoon-yahanada hadda ku nool, waxaanba tiro lagu soo koobi karin culimmada iyo aqoon-yahanada qaybahooda kala duwan oo magaaladan loogu abtirin jiray.
magaalada waxaa ku aasan dad badan oo ku shahiiday halganadii kala duwanaa ee dalkaasi ka dhacay xilligii islaamka, wakhtigii gumaysidiidka iyo marxaladihii kale ee kala duwanaa. waxaa jirta goob taariikhi ah oo ay ku dhigan yihiin magacyada dadka shuhadada ah ee loo arkay in ay dalka iyo dadkiisa u soo halgameen, kadibna iyaga oo xaqdiriraya ay ku dhinteen ama ku shahiideen. dhulka waxaa sidoo kale lagu naanaysaa bilaadu raafidayn ama waddankii labada webi. labadaasi webi ee laga hadlayo waa dajla iyo furaad oo ah kuwa ugu weyn caalamka. mid ka mida labadaasi webi ayaa magaalada baqhdaad ku yaalla, waana webiga dajla. webigu waxa uu dhex maraa bartamaha magaalada. hareerihiisa waxaa ku yaalla goobo iyo dhismooyin taariikhi ah. saacadda qishla waa dhisme qadiimi ah oo ay dhistay dowladdii cusmaaniyada oo mar dhulkan maamulaysay. بنيت القشلة في عام 1861 في زمن نامق باشا الكبير. xarumo badan oo lagu cibaadaysto oo qadiimi ah ayaa magaalada ku yaalla. badankood waxaa la dhisay qarniyo badan ka hor. suuqa safari waxa uu ka mid yahay suuqyadii ugu horreeyey ee magaalada ka samaysmay. ilaa iyo haddana wuu jiraa oo laga dukaamaystaa. waa goob taariikhi ah. suuqan waxaa la hirgeliyey wakhtigii khilaafada cabbaasiyada. waa suuq caan ku ah walxaha iyo agabka ka samaysan maarta iyo macdanta. dugsiga ama xarunta waxbarashada ee mustansariya, ama sida kale haddii loo yidhaahdo mustansariya iskuul, waa xarun waxbarasho oo qadiim ah. waxaa la dhisay xilligii dowladdii cabbaasiyiinta. hadda waa goob loo dalxiiso oo ay dadku ka raadiyaan muuqaallo iyo xogo taariikhi ah. dhismahan waxa uu jiraa 800 oo sano, wuxuuna ka kooban yahay 100 qaybood. waa xaruntii ugu horraysay ee loogu talagalay barashada diinta islaamka, weliba 4 madhabood ee islaamka. waa dhab magaalada leh taariikhdaas fog, ilbaxnimadaas soo jireenka ah, aqoonta iyo is-ogolka bulshada. haddana waxa ay soo martay welina ay si hagaagsan aysan uga bixin marxalado adag oo ay ku jiraan colaado sokeeye iyo rabshado kale oo qaarkood lagu qasbay in ay dhex muquurtaan. si kastoo ay ahaataba, annaga ka Soomaali ahaan maxaan ka baran karnaa sheekada ku saabsan Baqhdaad? aragtidaada qaybta commentiska noogu qor adiga oo mahadsan. intaas ayaynu ku soo gunaanadaynaa warbixintan oo aynu ku soo qaadannay taariikhda, dhaqanka, ilbaxnimada iyo bulshada magaalada Baqhdaad ee dalka Ciraaq. tan iyo inta aynu ka diyaarin doonno muuqaallo kale. badgelyo, amaano Allah.